barkoor ninkii u horreeyey ee Soomaaliya ee yiraahda haddaysan Iran nuclear samaysan halaqa mareen bay noqonaysaa fikirkaas oo kale waxa soo jeeshay professorka caanka ee Mearsheimer Iran ayaa duqeymo lixaad leh xilligan haatan ay ku socdaan meesha Iran ayaduna dhinaca ay doonto ay wax u tuurayso oo barigii dhexe oo markaa holcayo sharaf iyo karaamo ay tahay maxamed soo dhawow bismillahir rahmanir rahim رمضان مبارك رمضان كريم دمان شعبك الصوماليات بريش صومالي تي في كحرن والسلام يا وعن الله هي هبيكو أمرارتو عيني وعنات وحقاق محمد هدي أينو مركو هروكم بلونو صور جود وحنا سيسا ورركا وجودن بي مركا ديكتير دي جود هذا يا ميل والبابا دي على إسرائيل دي على إيران يا دي على المراكن كمان waxa war u dambeeyo imika la soo sheegayaa inay Iran ay gataaladii amba droonkii ay ku garaaceen safaaradda Mareykanka ee Saudi Arabia ku taala khaasiyaan caasimadda Riyadh iyo gataaladii oo ku hoobanaya magaalooyinka Israa'iil ay ka mid tahay Tel Aviv Haifa oo gataalada ku daadanaya gataalo ka daran intii 12 cisho lagu ridayay maanta aad uga daran tahay oo iyagaba xitaa argagax galiyay laakiin Cabdixaafidow sidaa sheegtay waa run marar badan baan kaga falaaqaynay xaggan dagaalkan inuu xitaa iman doono in la daynaynin Iran laakiin Iranna ay ka sii tababushaysatay waxaad moodaa 8 bilood u dambeysay inay isku diyaarinaysay waxaan arkayay dad Soomaaliya inaan xitaa walaal aad uga walwalay markii Allah u naxariisay Ali Khamenei oo la dilay horta qof kastaba waqti bulow dhiman doona laakiin anu waxaan garanayay inay waxba ay ka bedeleen dad baa moodaya xitaa waxaan arkay dhalinyar horta way fiican tahay in siyaasadaha caalamka imika laga faaloodo waayo waxaan u jeclaan lahaa inaan wax ka faa'iideysano waxaan ka baran karnaa xaggan wax la yiraahdo institutionada ama maamulada la maamulo dalalka lagu maamulo sida qura aad ku badbaadi kartid waa sida Iran samaysay dastuur aad samaysatid institutiono kala dambeyn leh ama sida reer galbeedka afafka qaar loo yaqaano balance of powerada oo ama quwadaha hay'adaha maamulka amba hay'adaha nabadgelyada amba ciidanka si loo kala maamulo taasay ku tusaysaa wax la yiraahdo continuity inay ka dhacdo meesha inay dawladdu iska sii socoto oo ayatullah kala la calama saaray marka ina wax ka faa'iideysano Soomaaliya anagu future-ka dambe wadanadeena aan isku maamulno yaan jeclaan lahaa dhalinyarta waliba jecel inay bartaan siyaasadda amba international relationship meesha 10 baa socda waa gartay markaan u nimaano dagaalku meeshuu marayo Iran waxaa la leeyahay sidii loo maleynayay ma ahan ayaa la leeyahay dagaal bay u soo jeesatay isdhiibitaanna buuggeedaba kuma jiraa la yiri oo inay isdhiibto rajo lagama qabo oo qaamuuskooda arrin ku jirta ma ahan Mareykankuna quwad aan loo dulqaadan karin weeye oo aan markaas cid ka hor istaagi karta aysan jirinin maxay xaalku noqon doonaa islaam horta Cabdixaafidow halka haddaan ku horeeyo halku wuxuu noqonayaa dagaalkan oo la joojiyo oo ay sidoo imikaba uu jilcay Donald Trump oo nimankan Iran oo haddeeto gacanta u taago iyaguna korkaan condition adag bay soo dhigayaan amba waxa imanaysa in uu nuclear isku bedelo oo haddii ay ogaadaan tii ay ku dhigeen Japan waxa ugu rideen nuclearka waxay ka cabsi qabeen inay ciidan badan kaga madho Mareykanka iyo wadanada la socday Ingiriiska iyo Australia iyo wadanada marka taa hadday ay inay timaado ay Iranian kuna isku diyaariyeen oo waxa ay gantaalo ay u diyaariyeen ku foorariyeen nuclearka Israa'iil dimona meesha leeyahay inay qarxiyaan isla qarxiyaan hadday takalana iyagu waxa ay fahansan yihiin in kullayba la deynayn marka kayd waxay haystaan ilaa 4 sano kale ay ku dagaalami karaan waxaan ka hadlayaa waa
biyo cunno underground ay ku jiraan ciidanku diyaaradahoodu waxoo dhan aad bay isku diyaariyeen wayna garanayeen sida uu sheegayba wasiirka arrimaha dibadda ee Iran wuxuu yidhi 20 sano isku diyaarinayaan marka xalku maxay noqonaysaa sida qoraalkaygaba ku sheegay Cabdixaafid oo qoraalka iminka u dambeeyeen xitaa maanta waxaan dhigay baraha bulshada oo Donald Trump leeyahay True Social leedahay xitaa dhigay oo aan ku andacoonayo leeyahay in amaan la siiyo Iran iyo xalku ku jirta taas haday timaadana waxa isbedelaya saan hore u oran jirayba geopolitical reality region laakiin Netanyahu iyo xulufadiisu taana ma ogolo waayo hadeetar waxay noqonaysaa inay xuduudooda ku joogaan ma rabo laakiin tani haday sii socoto wala isla baabi'i doonaa nuclear bay gali doontaa laakiin waxaana ku jabi doona dowladahan imikadan waxa la sheegayaa 20% dhaqaaleydu buu taabtay maxaa yeelay wadanada waliba khaliijka Cabdixaafidow imika horeyn waa digniin waxa laga burburinayay saan ognahayba baysaskii uu Mareykanku lahaa ee yaalay wadanada yaalay hadduu yahay Imaaraat Qatar Bahrain Saudi Arabia imika waxa iman doona haddii lagu sii wada Iran si uu dhaqaaluhu adkaado oo ay shidaalada u heli waayaan inay shidaalada garaacaan wuu diyaarsan yahay waxa kale oo u diyaarsan wadanada khaliijka inay dhulka dhiga waliba ugu horeynayaan Saudi Arabia Qatar iyo Imaaraadka waxay ka burburinayaan kaydka biyaha iyagu waxay ku nool yihiin biyaha badda cas ay safaystaan madaxda ka safeeyaan taasay burburin doonaan hadday taa burburiyaana laba mid bay noqonaysaa in ay iyaguba isdhiibaan inta laga sugayo Iran ay yiraahdeen nooga baxa shacabku kacaan laakiinse faanole farakaba qodmooli waayahay haddii aynu eegno Iran waxay bartilmaameedsatay marka la eego gudaha bariga dhexe gaar ahaan wadamada khaliijka aad ayay u bartilmaameedsatay Israa'iil oo imaan doona ayay bartilmaameedsatay Cyprus ayay duqeynaysaa oo Yurub ka tirsan NATO ma laga yaabaa dagaalka inay soo gasho way eegayaan horta way soo galayaan horta waayo tani Mareykan kuma xidhna Israa'iil iyaga u dhoodu influence ama saameynta ay ku lahaayeen regionka isbedelaya waxa iman doona ujeedada looga dan leeyahayna maanta xitaa ku dhoodu China iyo Ruushba iyagoona toos u soo galin inay saacidaan sida imikaba ka saacideen hub haday noqoto satellite haday noqoto waayo waxa lagu socdaa China hadhowna waxa ku xiga Ruushka waayo waa meesha idil uu shidaalka xoog gale uu ka helo China uu doonayaa inuu Mareykan iyo xulufadiisu maanta ay ku jabaan dagaalkan ku jabaan Vietnam ku noqoto Vietnamkii casriga tani waxay kaga gadisan tahay dagaaladii hore loo arki jiray iyagu waxay ku talagali jireen wadan iska caabin kara xagga cirka inayna jirin waayo sida aad imika aan xagga aniguba ka arkayay daawadayaashuba ka arkayaan diyaaradaha casriga ee maraakiibta qaadaya lama filayn inay Iran wala dal kale ay jiraan u barbardhigi kara iska celin kara iska caabin kara laakiin arrinkani waxa cajiib oo la isla fahmay oo dowladaha idil Mareykanka maanta maamula iyo reer galbeedka Israa'iil waxay noqdeen wadanadii waqtigii casri wadanadii waayadii hore sida Romanka oo kale kibirka way kibreen way dhayalsadeen laakiin Iran waqti waxay maanta joogtaa inay iyadu daristo sida u fikiraan dadkan Mareykanku reer galbeedku xitaa Israa'iiliinta ku dhoodu madaxdoodu maxay sarabaan waxay rabaan iyagu wax la yiraahdo quick fix dhowr cisho ay infrastructure-kaaga hubkaaga dekadaha dhulkooda ka burburiyaan kolkaan was dhiibaysaa tan iyagu way ka sii hortageen xitaa waxay dhageysan waayeen Cabdixaafid oo cajiib reer galbeedku khaasahan madaxdoodu waxay dhageysan waayeen madbacadaha darsa anaguba ka xol qaadano warar kala gedisan hadday tahay Chinese hadday tahay Russian hadday tahay xitaa ku dhowdu maaragtay kuwa madax bannaan
madbacadahan ama tigtaanka loo yaqaano ee darsiga sameeya bayba fahansaneen bar iyaga waxa ka maqan dad baa u haysta ina Iiraan la dhex galay oo sirahooga la qodayo oo sirahooga maadaama la og yahay guriga uu degan yahay wasiirkaas amba aqalka uu degan yahay Khameini taamaha sir hadday sir tahay bari waxay soo qaadeen laba oga Iiraaniyanka xaggay wax ka tuurayaan hubka u kala beddelayaan gataalada u kala beddelayaan waxay ku tala galeen baysaska idila ku wareegsanaa amba ku hareersanaa inay u bacbacdhiga karaan laakiin iyagu intaa oo dhan way iska indhatireen taas aawadeed bay maanta la yaabayeen xitaa caqli daridooda iyo caqli yaridooda iyaguna fahansanayn dastuurka Iiraan sida u dhigan tahay waxay u qaateen Ali Khamenei hadday dilaan inay dawladdu burburayso wala naiif institutionka Iiraan saa uma shaqayso Iiraan waxa u shaqaysaa dastuur ba xukuma dastuurkuna وانا خريالو دستوركم عاودا بان حتى اخرني waxa u kala saaray kolkaaba imika in la bedelo ku kala la keen ma aha wadanadeena ama wadanada Afrikaanka iyo wadanada Carabta inuu dictator cundaa meel fadhiyo hadii isaga la dilo dalku kala tagay taana way ku jireen waayahay maxamed haddii aynu eegno waxaynu la soconaa Iiraan duqeymo ba'an inay u geysatay Israa'iil oo khasaare naf iyo maal geystay Netanyahu madaxweynaha Israa'iiliyiinta oo goobtii la burburiyay tagay ayaanu arkaynay Israa'iil iyo Maraykanka wada jirana khasaare ba'an bay u geysteen dowladda dalka Iiraan khasaarahaas labada dhinac maxaad nooga sheegi kartaa horta waa run Iiraan qudheedu duqeymo yaa ku socda inkastay iyagu shacab ay bartilmaamsanayaan maxaa yeelay baysaskooga militarigu underground hubkooga underground bay yaalin marka sida ay ku helaan ciidamada amba hubkoogu way adag tahay marka iyagu waxa sameynayaan wax la yiraahdo shacabka intay laayaan sida shacabka Iiraaniyaanka u kiciyaan ay kacaan ay nacam dawladda ku kacaan ay yiraahdeen iniga wax nagu wacan yagiiba ku soo wareegtay taas imika shacabkii Israa'iiliyaanki yaa dawladdoodii ku kacsan oo yaa iniga nagu doontay maxay haddaba Iiraaniyaanka u kicin kareen waxay Iiraaniyaanka u kicin kareen shacabka majority-ga Iiraaniyaanka boqolkiiba 80 la dhaahdo waxay aaminsan yihiin in xaq darro lagu imanayo dulum in iyaga lagu leynayo dadkooda maadaama ay sii dilayaan ciyaal yar iyo ubadka yar ee iskuulada ay leynayaan maadaama ay dadku sii dawladooda sii taageeraan marka iyagaba sheegay waxay ku noqoto wax la yiraahdo backfire ba ku sameeyay laakiin Israa'iil shacabkii ba qaylinayay way qarinayaan talabaadna waxaan uga digayaa Soomaalida waliba shacabka aad u daawanaya iska ilaaliya saxaafadooda hadday tahay saxaafadahan ay maaragtay Maraykan haduu yahay Israa'iil haduu waraa Reuters waraa Associated Press yagaale waxa iyagu jecel waa propaganda wararka kale ee adduunyada kale yaa maaragtay la baara kolka adigu fikradaada kala soo bax laakiin waxa ay sheegayaan iyagu imika maalintii horeysay dad badan bay ka dhaxiyeen hebel baa laga dilay way anagu waxaan u baranay madax marka la laayo dalkaas uu kala tagay ma way maxamed haddaba haddii aynu eegno wadamada Carbeed khaliijka maxaa la gudboon dagaalka ma ku soo biiri doona waxaan aragnay Xisbullah dagaalka ku jirta xuutiyiinta waxa leeyahay ayaguna soo galayaan laakiin Xisbullah waa dhex taagan tahay haddana kula hadlayo Israa'iil waa duqeynaysa u jeeda Beirut koonfurteeda dagaalka ma soo gali doona xuutiyiinta wadamada Carbeed maxay yeeli doonaan ma aamusi doonaan gacmaha laaban doonaan si dagaalka soo gali doonaan horta iyaga dani uguma jirto inay dagaalka soo galaan iyaga unbaa ku baabi'i doonaa se way u badan tahay in lagu qasbo waa lagu qasbi doonaa ciidanka dhuka unba iyagu ka qayb gali karaan diyaaradahooga horta meel ma gaari karaan iyagoo jooga imikadan hadday dareemaan Iiraaniyaanku inay xitaa in yar isku dayeen horta waxay burburin doonaanba diyaaradahooga eraboradooda burburin doonaan diyaaradaha waxay hayaan dal kasta oo khaliijka ah baysaskooga militariga ah amba garoonadooda diyaaradaha militariga
iyo iyagu qudhooda xitaa baysaskooda militariga iyagoo xaggaa joogay ku burburinayaan iiraan horta iskama dagaalamayso inay dadka ay qalad ay sameeyaan yaan uga digayaa maaha inay gantaal un ay tuurayaan waxani waa wax 8 bilood ay kasii fikirayeen dal walba region walba waxay u diyaariyeen gataalo dabcan way isku dayeen inay soo galaan laakiin intaanu islama gaarayaan qabaan nimankani iyaga qudhooda imka dhimashadu markay ku badato iyaga lagu kici doonaa Israa'iil iyo Mareykan shacabka ku kici doona way joojin doonaa qosalkan iyo beentana dadka u sheegayaan farta dhuutay durba ku hayaan hadday soo galaansi wadanada khaliijku sida haddeer soo sheegay waxa laga burburin doonaa shidaalka waxa laga burburin doonaa kaydka biyaha lagu safeeyo dadka haraad baadili 2 week ku dhoodin ma joogi karaan waa dad raaxa u bartay waa dad u bartay maaragtay fadhixay wax ku cunaan ma joogi karaan cabaad iyo ooyinba la isla babaran dagaalkuna u ballaaran maaha xuutiyiinta iyo maaragtay xisbillah waxa dagaalka isbedel weyn ka iman doona Syria isha ku hayaan oo laha waxa ka soo bixi doona kooxo dawladdan Afgambiya waxa iman Iraq ba ay ka bilaami doontaa waliba inta badiyaa shiicada Iraq dagaalku la soo dhigay region oo ku ballaaran Donald Trump taana waa looga digay isagu wuxuu ku adcooday 48 saacadood baa ku soo gabagabeynaya bal waa ilaa inuu 48 saacadood ku soo gabagabeeyay waayahay dabcan uma eka sida hadda la saadaalinayo in saacadaha kooban lagu soo afjari kara dagaalka waa bilaabi kartaa laakiin midda daabkeeda ma hayso qofka xakameyn kara ma tihid marka Donald Trump marka la eego soo dhimasho wajahaya dhaawac wajahaya khasaare military iyo burbur fara badan matalaya dhex taagan sidee ayuu guul degdega oo isleedahay uga keeni karaa dagaalkan hadda socda kama gaari karo sida qura ay guul degdega ay day rabaan inay ku keenaan ay nuclear isticmaalaan nuclear kuna dhibaato weyn buu region dhan u keenaya u dheedo Iran way ku tala gashay laakiin meesha waxa jira oo in isweydiiyay waa intelligence failure ba meesha yimid intelligence failure maxaa ka wada sirta idile Iran military-googa iyo sida u dagaalamayaan waxay hub haystaan inta muddo dheer leeg ay dagaalami karaan mayba isku mashquulinba waayo propaganda yu Netanyahu la tagay waxa lagu soo dubay dagaalkan oo lagu soo karkariyay Florida Mar-a-Lago guriga uu aqalka u leeyahay Donald Trump odagii waliba Linda Graham yaa maaragtay yaa la joogay bangarayno waayo raggan waxay iska dhaadhiciyeen inay diyaaradahoogu yahay untouchable maanta waxa ceeb ku noqotay ay qirteen imikaan ka filana waxa wax ka badan 7 diyaaradaha F-35 leh F-16 leh nooc walba in laga soo riyo Mareykanka qura 7 laga soo riyo Israa'iil waayo waxay ku leeyihiin way geli kari laayihiin hawadii laakiin maxamed ayagu 3 diyaaradood bay sheegteen waxa sheeganaya reer galbeedka miya Mareykan iyo Israa'iil waxa ma sheegin saddex hadday sheegteen anu waxa oran lahaa multiply 4 waayo weligood waxa saxaba sheegtaan sidaa daraadeed waxa inay la isweydiiyay waliba mudan in la isweydiiyo iyagu waxa Iran ka dhacaya kaaga sheekayna wuxuu ogal ku qaranayaan how do they know iyagu waxa gaaray Iran ma joogaan adeecadoodu ma joogaan laakiin waa propaganda waxaasi waa dagaalka waxa la yiraahdaa psychological warfare balada waa dagaalka maskaxda iyagu adduunyada inta oo dhanba ku qabsanayeen cabsi gelin information qalada laakiin waxa ajiiba oo hadda akhrinayay ciidanka revolutionary guard-ga ee Iran iyo ciidanka militariga caadiga marka ay galayaan militariga kutubta Quraanka yaa lagu dhaariyaa waxa lagu dhaariyaa inay tagayaan janno inuu ahli janno yahay inuu shahiid yahay marka dhalinyarta sida u dagaalamaysa dhalinyar laga guuleysan karo ma waxa iminka la weydiiyay madaxweyne ku-xigaha Mareykanka JD Vance waxa laga yiri bal laga yaabaa inaad baratay ciidanka dhulka wax walba waa possible JD Vance muharaale hada
وحوها وزير الدفاع أيمي كوبحيين secretary of war ودونالد ترامب كبدلي مقعي وزارة الدفاع ووزارة الدجالك بركة وزارة الدجالك بلغيها بقى عيدا كدوكا أنجشيبوي إني ما شايف إنك لا واحد سوى possible ويسكهض لي سيدا كوسو قلان وديدا كو قلان عيدا لو قدران هرتوا مركي بربريان ودنا ديارادو يدرون كو بربريان دولة دا عيدا كوغا كوب كوغا بيسس كوغا ويبلاهي ما ميلو ugu tagaan ma maqasheen cid maqlay ma jira base u leeyihiin maartay Iranianka la burburiyay ilaahay ma waa buuro hoostooda ku jirta وهذاك محمد وحرب أنا كاغا مهد عليه وقتي قاليغا بلس انتا كهر قرالكاغا تويتركا دودك اللي محو دارنا wuxuu daarnaa waxaan ka hadlayay haddii waxay dhegaysanayaan waddanada reer galbeedka khaasaan Maraykanka ama dowladda Maraykanku inay muhiimadeeda tahay inay Iiraan faraha ka qaadaan wayna ahayn way ku jabayaan wayna ku ciboobi doonaan hadhow toonana danihii Middle East-ga Maraykanku iyo waddanada xitaa inta la habaalana baan idhi waxaan ka wadaa waddanada East Africa wadanadeena oo kale badda cas straight maaragtay xitaa Bab al Mandab waxay oo dhan way loos gareyn doonaan maxaa iman doona inay horta waddanada